madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wada hadallo miro dhal ah qasriga madaxtooyada Djibouti kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele. Labada madaxweyne ayaa si qoto dheer uga wada hadlay xiriirka walaaltinimo ee ay wadaagaan labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa. madaxweynayaasha ayaa sidoo kale kulankooda kula faguray xaaladda guud ee gobolka. madaxweyne Farmaajo ayaa dawladda Djibouti uga mahadceliyay kaalinta ay ciidamada hiil walaal ka qaateen xasilinta iyo nabadeynta Soomaaliya. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa kulanka kadib la hadlay saxaafadda. Djibouti waa dal walaalo aanu nahay, labada madaxweyne waa hiil walaal, waa laba dal ma aha, waa hal dal oo runtii waxaan dhihi karaa Soomaali. waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalana ee Djibouti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMISOM ee dalkeena Soomaaliya sidii iyada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameynayaan dadaalo aad iyo aad u xoogan. waayidii hore waxaa jiri jirtay in AMISOM ayaga ay dagaalamaan, laakiin waqtiga hadda aniga aan positionkan aan joogo waxaa la sameeyay dagaalo oo runtii loogu soo jeedo ururada al-shabaab ee badbaada 1 iyo badbaada 2 oo runtii aan dhihi karno guulo badan ayaa laga gaaray. waxaana filaynaa waqtiga hadda la jooga al-shabaab inuu awoodiisa ay tahay maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM walaaleena AMISOM dadaalo badan ay ku bixinayaan. waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka siyaabihii AMISOM ay u bixi lahayd ee qaabka ay ugu bixi lahayd meelaha AMISOMta ay banaysana waxaa loo diyaarinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan amnigooda insha Allah ta'ala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka ay wax walba ay ku dhamaan doonaan. Salman Ogo, SBS TV, magaalada Boosaaso.